بسم الله مeel kasta joogto waad mahadsantihiin waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar saddexaad aan idin la wadaago saliidda aan gacanta ku hayo waa saliidda barakeysnayd waa saliidda ummad fara badan oo muslimiin ay ku caafimaadeen waa saliidda midda hurdo raadinayay oo alle hurdo ku siiyay midka madax xanuun la waalaana alle uga dulqaaday midda korkiisa kuleelka iyo dhibtu ay haysatay iyo daalka faraha badanna waa miduu alle uga siibay saliidan waa saliid ay isku raaceen ummadeena Soomaaliyeed inta isticmaashay waa saliid barakeysan oo alle ummadda u galiyay barako laakiin waxaan idin sheegayaa wax walba wanaagsan lagama waayo qof u dhiga hagardaamo saliidan waxaa lagu sameeyay koobi khaasatan ziyaar Washington walaalaha degan ee muslimiinta ee Soomaaliyeed waxaan haddadaas waxay leedahay hooyo igu tir waxaan isticmaalay midda koobiga markaan waxtarkeedii aan garan waayna haddana waxaan dib u arkay clipka adiga aad leedahay ziyaar Washington walaalaha ku nool waxaan u sheegayaa sidoo kale Kentucky walaalaha jooga taxalaalada lagu hayo ma aha saliidda al-shifa dhammaan waxaan soo sheegi doonaa meesha saxda ay ka taalo adreeskeeda iyo lambarkeedaba insha Allah taala kuwa laga hayo ama lagu hayo meelahaas ma aha saliidda al-shifa waa saliid koobi ah oo qofaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka xishoonin maalinta qiyaamana aan xisaabta dambaysa aan ka baqin oo koobi ku sameeyay oo laba jeer ama saddex jeer ba khiyaano sameeyay waa midda koobaad wuxuu khiyaano ku sameeyay walaalo Soomaaliyeed oo walaalihiisa oo muslimiin ku sameeyay waa koow waa midda labaad wuxuu khiyaano ku sameeyay qof dhiban oo bukaan ah ay wuxuu ku leeyahay saliiduna waa tii al-shifa stiikarka wuxuu ka duway malaha haddaad rabto inaad ogaato in saliidda saxda ay tahay insha Allah lambarka ayaan ku soo dhajin doonaa laakiin hadda waxaad ku ogaan doontaa gmailka hadda ku soo baxay shifa406@gmail.com iyo calaamadda ka hooseysa ee reerka ah ee new insha Allah taala dhammaantiin waad mahadsantihiin saad mar walba garab noogu tihiin garab Allah idin midda feega waa midda hadda soo baxday halka al-shifa ay ku qoran tahay korkeeda waxa ku taala caleemo badan ayaa ku yaalo sidoo kale wax gmail kuma qorno laakiin stiikarka iyo colorka xataa fiiri oo ay al-shifa tahay way ka dhigeen caagi sida way ka dhigeen qaabka dhiseenku u sameeysan yahay way ka qisheen marka hal la iska ilaaliyo saliidda hadda idin muuqata waa midda feega ah siyaara Washington waa lagu hayaa gobolada Mareykanka gobolo badan baa lagu hayaa waa midda feega ah ummadana looga gado in ay tahay saliidda al-shifa dadka iskalna Ilaahay ha ka baqaan maalinta qiyaamana xisaab baa sugaysa qofka dhiban ee miskiinka ee xanuunsan ay uga gadayaan waa al-shifana iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha uga baqaan hal iska ilaaliyo ma aha saliidda al-shifa midaas midda saxda ah waa saliidda idin muuqata waa saliidda idin soo baxday saddex calaamadood waa inaad ku garato waa midda koobaad waa gmailka inuu ku qoran yahay gmailka hadda idin soo baxaya shifa406@gmail.com waa inuu leedahay kow talabaad kor waa inay ku qoran tahay loogada al-shifa caleentii al-shifa waa inay ku taalo saddex qaybta hoose waa inay ku qoran tahay calaamadda reerka ah ee new ay ku qoran tahay saddexda calaamadood haddaad ku aragto waa saliidda al-shifa loogadana ugu muhiimsan tahay iyo gmailka mahadsanideen